بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدقا وكيت الضباد كمدة دروس وعبر من أيام أبي بكر وعمر. وحين اسكودينا موضوع كصابسون سيدنا عمر بلنا عن كوكوبنه فرام صوت المامي إنه يهي بحر لا ساحل له بدءا حيب لهين، لكن تنعريري كرو اسكو علين كران اسكو علينا إن شاء الله تعالى. فدقان هداي وركو نوغو ما هو إن شاء الله فدي حقا بينو قبنا مالك أربعة إن شاء الله بعد العصر. وحين صوت المامي النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا عمر وكت المامي علمي أقون دينات يكون رقن دينات العلم والدين إن لبضع وكت المامي سيجار أهريد وكدوان صحابة كله tusaalooyin ku tusaya cilmigiisa iyo fiqigiisa baynu soo qaadanaa shalay qaybo kamida maanta qaybaynu ku daraynaa kadibna fusuul kale baynu u gudbaynaa insha Allah taala. Umar radiyallahu taala anhu wuxuu ahaa dadka aad iyo aad ku nacab la dagaalama caadaadka iyo dhaqamadii hore jaahiliga ahaa in islaamka gudihiisa lagu dhaqmo ama la xigsado ama uu ruux muslim ah oo islaam sheeganaya uu ku arko dhaqan uu tuusan yahay inuu ka soo jeedo jaahiliyadii hore ee diin la'aanta ahayd. qadiyadka waxa kamida qisadii Ghaylan ibn Salamata al-Thaqafi saxaabiga reer Bani Thaqif nin ugaasa oo reer Thaqifaadi aad u xurmeeyay ayuu ahaa fil jaahiliya waagi dambana waa islaamay. waagu jaahiliga ahaa intuu tagay buu Kisra ninkii reer Faris haystay u tagay isagoo wafdi ah xoolo badan buu soo siiyay. xoolihii Daa'if buu qalcad weyn kaga dhistay marka dhin sayid ah fil jaahiliyada ayuu ahaa wal islaam. markuu islaamayay asagoo 10 dumar qaba ala qaacidada al-jaahiliya 10 dumar asagoo qabo soo islaam. nabiga ku kaleey salaatu wassalaam 10 kan dumarka ah afar ka dooro lixna siida afartii marka u yarayd buu ka doortay inta kale la waafasaxay. saasay hawshiisu ku dhamaatay. khilaafadii sayyidina Umar markii la gaaray oo nin waayeel xaqana uu yahay yu haween afar oo qabina wuu furay adoomihiisa dhanna wuu xoreeyay xoolihiisana wiilashiisa bas uu qaybo dhowr iyo 10 ah gabdhihii waa ka tagay dumarku wuu furfuray adoomadiisana waa xoreeyay hantidiisina isagoo bad qabo nool oo meel laga haynin yu wiilashiisa ku tabacay iyagoo u qaybiyay gabdhina waa qadiyay. سيدنا عمر باورك جاري أولي نينكي أها غيلان بن سلمة عمرو هوين كنا نواف فرفري الدومي سنوا حريي حولهنا وحو هانتلا هانا ويليشون بو قيب شيء قبلهنا واقد شيء. عمر بمركو وياي مركو صوشو بسنيه طلقت نساءك واعتقت عبيدك وقسمت مالك بين بني كبور. مجرتا إن هوين كودان آد فرطي حولهنا آد ويلش هذا كليه وقيبسي الضومدنا آد حريسي هابوري. عمر وحوري إلهي بان كود آرتي وحان ملايين إياه إن شياطينتي أي صوت فين روقي عدك ملايكتي شيكيساني السماوات شيكيسانيس ملايكتاس وشيكيسا إناد سند كدمان دونتو أد بلاهن قلفي دونتو شيطانك با صوت في وركا اسغا شيطانك با اديga ku waxyooday buuri inaad dhimanaysa lagu sheey kadibna waxaad go'aansatay inaad gabdhahana qadiiso carruur wiilashana dharjiso. waxaan meel filahayaa baro usbuuc ka badan siin noolaan maysid. Umar raduu waxaan filahayaa maxay noqon jirtay sidoo yiraahdeen noqon jirtay. ilaahay baan ku dhaartay wuxuu yiri ama nolol iyo geeriba waa kugu garaacaya ama haweenku waad soo celin kulli afarta bartu waad soo celin waan ka noqday raajactu xoolihina caruurta si siman baad ugu qaybin ama waa dhaxal oo waxaad bixisay ma jiro labada baad kala dooran buur. wallahi lam turaji' nisaaka wa tarji' fi malika لو ورثنهن منك إذا مت ثم لا أمرن بقبرك فليرجمن كما رجم قبر أبي الرغال بور. أبي الرغال لين بدن بعد مقاشين بانو ملايني هوانك واد سو علين بوري xoolahaadana waad cayshan
dumarkana waa dhaxalsiin haddii kala buuri waxaan amrayaa qabrigaada markaad dhimato usbuucan dhaafama maysid waabaan ku arkaaye in sidii abu riqaal qabrigiisa loo dhagax tuuro faraajaca nisaahu waraajaca maalahu qaala naafic famaa makatha ilaa 7 xataa maata haweenkii buu soo ceshaday xoolihiisina dib buu u ceshaday 7 beri kadibna wuu qallafay waa geeriyooday wadaadkii saxaabiga ah عمر بابا كسر دارتي إنه سن سيس عنين كذب كيسو قايبة حديث صحيح وي إذن أدرس كيس فراسديسي أدرس كيسي قياستيسي علم كيسي أقال كيسي كهشدو كهونا يدقن كي عادات كي جاهلية أيو صحابي كان سيدا هاتو كل انتو كتو قان سيدا يون قبل كيس لور رجميو سيدا لور رجمين جري قبري أبو الرغال ومحاض هيدا حديث كلا حديث جابريو حديث بدن باكشا كيسي أبو الرغال وحو أهاني ريث ثمود قوم كي نبي الله الصالح لو دري ريث ثمود صقرن ميزان اللي قرروا يودن كان هذا السعود وقاي دقيين ديار ثمود يحجروا صالح واتقانان قوم كاس اللي رقيبو كتر سنة قنت الله مركب باللودين يا سيحادي يا دحياشو باللودين بو سو عري حرمكو سو غلي كعبدي بيت كلاه بو مغان غلي ريث ثمود waa baabiyay nirig laga mareebin asagoo halkaas ku jir in muddo bilo ku dhuumanayo joogay waagi dambe wuxuu is yiri hadda waa nabade tolkana dhamaay carabahaad kale aad ka sheegatide bal hadda iskaga noqon dhulkii waxaad ka heshaba markuu xaramkii ka baxay xilliga madaxa saa u galiyay yaa dhagax xirka socda madaxa ku dhuftay waa la sugayay baad hal xabad baa sugaysaa iyada intuu xaramka ka soo bixi baa la sugayay حرمك إلهي وإلى لنشر في الجاهلية والإسلام روحي قلا ولا مغنقلية قالك كعرة ولا مغنقلية فاسقي منافقي قلا ولا مغنقلية إلا ضد خاص وحكم قناع كسو دقيم مويه أبو الرغال مركا أصوى الكاسو كبت قبي مركو يشيري بلاد الدون كهذا النبض ويوم قولي أنت لو عيل قبي لما هذا أضوك هذا عندكم مرة بتي اسكبح أنا قورته والقول نفترض واحد مدح كغيبي والله حبالي dadkii meelaha ka dhawaaba xabaalay hantidu watay dahab u watay oo ashuumahana wala la xabaalay saxaabiga jaabir ka sheekay markan maaya nabiga aan raacanay abdullah ibn amr asnu ka sheekay aan nabiga raacano socono yuu nabigu nooga sheegay abu riqaal wuxuu ahaayay meesha ku soo cararay suu u badbaadiyay waagi dambana sidii dhagaxa loogu dhuftan gantaalka nabigu wuxuu qabrigiisa waka dad rabtaana hadda qof oo faaga waxaad ka helaysaan looxan dahab ah عبد الله عمرو حلوان كلا بوبنا وان فاقني وحنا ugu tagnay alwaxiid inta la ogo dahaba la qaybsi waa lagu kala tagay abu riqaal ninkaas oo ahaa waagida marka carab markay ogaatay ninka xumaantiisa oo intuu soo fiigtalo xaramka ilaahay galay markuu ka baxayna la toogtay oo la xabaalay qabrigiisa waa dhagax tuuri jireen markay maraan dhagax baa lagu tuuri sida hada shaydaanka aad u dhagax tuurtaan jamaraad Soomaaliya arag kabnin ku tuuran dhagax ku tuur waa la halgaadi jiray lacanad ahaan iyo nacayb dartii baa loo dhagax tuuraya waxa kaloo la sheegaa inuu gaalo hogaamin jiray waa isku dayday xaramka inay kacbada ay dumiyaan inuu hogaamin jiray waa la sheegaa waa xadiis baa tilmaanta dacfi ku jiro almuhim saxaabigu wuxuu yiri marka Umar ah salamow ghaylaanow haddaadan saa yeelin waxaan qabrigaada u rajmin doonaa oo u dhagax tuuri doonaa sida loo dhagax tuuro haddaba qabriga Abu Riqaal nin walba oo tolki ka fiigtooba oo balaayo qaban noqda kadibna xumaan iyo balaayo ku tilmaanada Abu Riqaal hada la iska yiraahdaa qadiyada marka waxay ku tusaysaa sayidina Umar fiqigiisii iyo fahamkiisii diineed maxaa yeelay haddaan caadaadka lagu hortagin xuxunka waa la wadaya asagoo noolba wuxuu rabaa inuu yiraahdo haweenkii waa furan yihiin waa kaarto waa xiilad kadibna wuxuu yiraahdo xoolihii waan qaybin la dhaxal ma ahe anuu xoolaha ma leeyaha haddii anoo nool bad qaba meel laga haynin baan qaybiyey waa hiba saxiixa warhiba ma ahe waa kaarto yaad qadanaysaa gabadhii baad rabtaa meesha inaad u fufuuqayso wiilasha wax ku tabacdo darjiso dhaqan jaahili weey Umar oo kale marka haduusan taagnayn oo qoliyahan fuqaa isku sheega maanta loo keeno maxay oran lahaayeen waa nin baaliq oo mukallafa oo saxiixa kaamil tasarruf taamul wilaaya wal milki khiyaar loo cinna qasbin wuxuu bixiyo waa baxsan yahay إلا مرض موت مخوفة متشرو بقبقتا عمر مقره وحو قران صدا مقاصد يوجدوينك حيلكي عادات كورنا وافيريا
waxba looma qarin karo raxmatullahi radiyallahu ta'ala anhu waxa kamida xukumkiisi fi laqiit xiyalka soo uga hortiri jiray laqiitka ilmaha meesha laga soo helay xukumkiisi ninka uu horeeyay cadeeyay asagu ahaa ee qaacida ka dajiyay ummaduna ilaahay ku waafajiyay nin la oran jiray Sunayn Abu Jamila ayaa wuxuu yiri wajadtu mambuudan ilma la tuuray baan helay baro meecilla ayaa la xilligii sayidina Umar oo khaliifka ahaa aniga cariifkayga nabadoonkii qoyska aan ka dhashay nabadoonkoodii ilaa nabadoonno magacaabi jiray ogaasyo iyo Umar magacaabi jiray ayaan u sheegay waxaan war maalin dhaweedan oo socda ayaa ilma meel cidla caga bidlaynayaan soo qaaday ee Umar bal u sheeg Umar baa loo sheegay wuxuu u yeed ninka ilmaha soo helay isagii baa loo yeelay markuu Umar anoo soo socday arko indhaha bab igu siiyay iyo wuxuu yiri asal ghuwayru abusa waa mahmaha ay haweeneydii zabaal loo jiray ay bixisayo ghuwayrku waa meel magaceed waana god ruuxa waxa loogu mahmaha ruuxa aad xumaan ka filayso waramu ardaal yahay nin baa lagu tilmaamay bulu yeedha arkay waad fiirisay oo ka shaqo bixiyay suuq baad ururaysa waad ka shaki muuqaalkiisa ka shaki ninka dhagar iyo ku tuumayso xumaan iyo ayaa loo mamada loo isticmaalo mama waa nimay ku timid iyo nimay ku taalaan la yiraahdaa asal ghuwayru abusa markuu indhaha saaray wuxuu ninka mu dhagar qabaya ilmuhu sheegay ama asagu khayaano mid asagu dhalay oo xooraamu yahay ama hawsha asagu kaarta ama uu rabaa in aan ku bilo baytmaalka laga bilo meesha u dhaqaale ku helo Umar farba u taagan xariifkii nabadoonkii yaqaanay wadaadkan yaqaanay Sunayn ayaa wuxuu ku leeyahay amiir almu'miniin innahu laysa bimuttahamin amiir almu'miniin laysa bimuttaham gurigeedii dhawaaba la shubaya baan u maay dib ma jira iska fadhiya ka koraa dhagax ka soo daadahay warka qowqowdu waa sida baan u malay wuxuu yiri amiir almu'miniin laysa bimuttaham ninka nin diin xumo lagu tumaya ma ahe bal warku ka dhageyso markaas Umar wuxuu maxaa ku geeso qaadisa ku dirsaday ilmaha soo qadiya ku yiri wuxuu yiri yaa amir ilma sabi oo meel beelaho dayacan yaala oo daawacadu badafi qarto ilaaci kartaan arkaanu markaa inaan badbaadiyo waajib ay ugu noqotay waxaan jeclaysay ilaahay markaa hawsha inuu ajri iga siiyo nafta aan badbaadinay wuxuu yiri waa runtaay waa xor ilmahaas waa xor ma adoonsan karto koow walihiisi gacalnimadiisi haduu weynaado iyo haduu yaraadana adaa iskale وعلينا رضاعه ونفقته هذان مسلمين نهينا بيتمال كمسلمين تلقى نوجينا يا هوني ذا نوجينيس خرج كذا لقى بحين بيل كيسان أنا قاب بيلين مسلمين بنجي مسلمين تلقى بيليا سجى لقى نوجينا يا وده إسلام شخصي صلى الله بهذا وأنا حر لما أدون سنكر لقيت كمسلم كبلاد المسلمين لقى هلي المها لقى هلي ماشى لقوا طرق هلي لكن وله يسيق على المديس ما دام أضواء قادة وحنا نايسي ومضى المسلمين توات كحكته حكم كأود سيدنا عمر إلى يومنا هذا بالغ رقمه جمهورها العلم بس إذا كنت جاي وحديث صحيح وعلى قاتوك العلماء كقاتين حكم كعمر إن روحه كلي مسلم كي واحد كلجو كلسوني وركي سلقبنا يحكم القدس صحيح سيدا عمر وعس كذي نين كنا بدون كوركي سكوساب سنة إن ودات كاس وصنا هين من أرداله حن وصنا هين وحكى والله قاتين أهل الحديث كقاتين إمام كمحدث كفقيها أما عالم كيف فنق حديث كي يقاني الرجاشة تعديل كسي توثيق كل جيل العسكري هذا إمام أقول لي إذا نك وعدلي واثق والله قاتين وركيس والله قبصدا أن الله بهاي إن الله بدأ الله بهاي وحيوا علمي وعمر قطوسي وحاكم ذا علمي قد حلك الجلية مسلمين إلى يومنا هذا يكون رقمان ما أنت بعض هاي ستان وكتجي في صلاة التراويح صلاة التراويح ده صلاة التراويح ده تكتان قابك وتكتان سيدنا عمر با اجتهاد كيسي بي أهيت قابك هذا وتكنيسا حديثك عائشة وتقرنيسا الديرا وحيث هو يدين نبي هبين رمضان صوب حي نسدم بي وتكذا كلي دور صحابة لا تكذا جماعة صلاة حلا يسعور تدو ذا لقب حي هدنا هبين كلابات بي صحابة يسوع شيغان عيدا كبدان با نبي كسو خداي هبين كسدحات با لسو شيغاي او markaas masaajidka buuxsame gaaray habeenka afraad nabiga uma soo bixin gurigiisu ku jiray halkaas iska cibaadeysanayay saxaabada masaajidka soo bixin way buux dhaafiyeen waliba ilaa banaanka la isku yimid nabigu waa loo baaqay nabi Allah noo soo bax waa ku sugaynaa
qolyo xidhaada qolyo dhagax ku tuuro guriga hortiisa qurur xiyar si nabiga u dareensay inay sugahayaan nabigu kasbo ugu aamusay yamaan mar dambu marka nabigu soo baxo markuu salaadu tukaday kadib uu la hadlo wuxuu yiri xalay waxaad sameeyseen inaad dhoobnaydaan waa arkay igama qarsoonay waxaase ka baqay sad salaada ugu qamaamaysaan baan arkay xilliguna waa xilliga waxay dagahayo axkaam la dejinayo waa zamanu tashriici weeye in lidinku waajibiyo taraawiixda iyo tahajjudka iyo qiyaamul leylka hadhownaad awood weydaa ilaahay idin cadhoodo marka ninkii tukanaya ee fahmahaya ee ilaahay u dhowaanaya khayr raadsanaya gurigiisa ku tukado ama intuu masaajid ka yimaado gooni gooni u tukada laakiin hawshan jamaacada joojiya sidaasay ku socotay oo muslimiintu nin walba ramadaan la gaaro nin gurigiisa ku tukada iyo laba iyo saddex masaajid ku tukataba saas hawsha ku socotay inta nabigu uu noolaa ee dambe khilaafadii sayidina Abu Bakar ilaa horaantii khilaafadii sayidina Umar saas loo tukanay maalinka dambe sayidina Umar wuxuu soo galay masjidka nabi maxamed oo shan halkaas afar dhinaca masaajidku ilaa 10 jamaaca 20 jamaaca ay ka jiraan wuxuu kaloo soo arkay kolba dadkii muslimiinta ah in imaamka codka quruxsan codka malan xaqiisa u didahaya hebel ka cod quruxsan daba geliya khilaaf badan inta soo jamaaco mid dhamaysa mid sii baxaysa mid soo galaysa markaas wuxuu yiri aroortii dambe marka fajrku uu tukaday ushiisa buu qaatay adirra minbarku fuulay xur sidaan aan xalay arkahayay oo ma dul qaadan karo masjidka nabi maxamedna ma qabato qabriga nabigu sidaan idinku aana ma yeelay khilaafkan iyo wala hawgan iyo qaylada waxaad ka dhigateen buu yiri quraanka ilaahay baad mazaamir ka dhigateen qiina baad ka dhiganteen cod malan iyo cod quruxsan baad raadinaysaanba xagga u did hawsha ma yeeli kara buu waan fikiray waxa ila qumanaatay buu in aad hal imaam ku daba tukataan hal imaam baan idin sameynaya asagaasa idin tujinaya haweenko kale hadii masaajidku qaadi waayo wadaad gooni u tujiyaan u sameynaya macallin gooni u tujiya asagoo quraanka yaqaan loo sameynaya sidii buu yeelay Ubay ibn Ka'ab iyo Tamim ad-Dari labada wadaad buu soo daba dhigay ragga bedeli jirna way jiraan hal jamaaca la tukaday baad al-isha intii la bilaabo iyo suxuurta agtida laga bixi jiray suxuurtu soo dhowdahay dhowr boqol oo aayadood baraqadii lagu tukan jiray waagidama markii la daalay wuxuu u yeeray sayidina Umar raggi quraadaha saddex qaarib oo Ubay kamid ah Tamim iyo nin kale u yeeray wuxuu yiri kiina codka culus ee aan quraanka boobsiin karin in codkiisu fududayn 20 aayadood kama badan kara ragcadii ninka xoog dhaxdhaxaadkaana wuxuu 25 aayadood ninka carabka fududna 30 aayadood kama badan kartid dadka xaaladoodii markuu arkay waagida marka waa la roona waag hore laakiin intii dhowr boqol aayadood la akhriyo iyo waayeeladu bokooro cuskan jireen aadna loo rafaaday waagi dambana uu khafiifiyay markuu arkay dhibka meesha ka jira qaabka hadda marka u tukataan eed u qunuudaysaan haba yaraato salaadu ha yaraato xisb ha noqoto ama juz ha noqoto ama fiid horaba kala dareere waa sunnadu uu ka tagay sayidina Umar habeenkii dambe uu arkay hawshu diyaariyay ee ku ijtihaaday ilaahay waafajiyay oo si fiican isku dhacday masjidna maxamed buuq lahayn ummadii wada foorarta ilaahay bariyaysa hal imaamna hor taagan yahay qaraado noo leedahay muslimiintuna hoganayaan wax buuqa iyo ismaan dhaafa iyo qayla masaajidkii xasilon buu soo galay wuxuu ni'mat albid'atu hadhihi bid'a ka wanaagsan waligay ma arag wuxuu jeeda qaabkan wax isku xiray buu u jeedaa mooy laakiin nabiga tukan jiray kaleey salaatu wasalaam saxaabada tukaday jamaacatan bay ku tukadeen laakiin cilad buu nabiga uga tagay oo ahayd baqidu ka baqay in lagu waajibiyo cilada meesha waa ka baxay nabiga haduu dhinto waxay danba soo dagaya maya idan hada ciladu zuushay wax noo diiday inaan jamaaca ku tukano masaajidka camirna ma jiro oo hadii waagu hore maxaa Abu Bakar saa u yeeli waayay Umarna qaybta hore khilaafadiisa u yeeli waayay lama waafajinin laakiin Umar baa Ilaahay u kaydiyay inuu sunnada u nooleeyo bidcada uu ka hadlay waa al-bid'a al-lughawiyya ma aha al-bid'a al-shar'iyya loo ma jeedo waxay waxaan rabaa qunuudkii saxaabada inaan wax idin ka sheego qunuudkii saxaabada taraawiix yaad u daba taagantiin nabi maxamed iyo saxaabada u daba taagantiin iyo Umar sooma
qunuudkooda ay qunuudi jireen inaan wax idinka sheego. baryahan dambe waxaa soo badanaya qolyo koobiyeeya qunuudkii sudays koobiyeeya oon muslimiinta u ducaynin oon gaalada habaarin oo xisaabo kale ku wareegaysta kuwa ummadaysan tujin masaajidda laga mamnuuco waa aniga taladayda. muslimiintu meel walba ay ku dhiban yihiin lagu rafaadinaya ku dulman yihiin maxas iyo maatidooda meel kasta lagu dooxaya waa qoyska adduunka ku noolee maanta diin sheegtay loogu dulmi badan yahay way adduunka muslimiintu. dhib walba meel kasta ka jira muslim baa lagu dhibaataynaya. muslimiinta adduunka jooga qaybo kamid maanta waxaa lagu qasbay ma soomi kartaan baa leey kii soomana xoog baa lagu afurinaya faleen baa lagu xidhi tuuba afka laga gelin raashin iyo biyo laga dharjinaya. warka Soomaa haysaan yaa sameeya China sameeya muslimiintu wax ku sameeya Igor iyo Turkmenistan ku sameeya. dhibka iyo baabaa meel walba adduunka muslimiinta ku haysta wadaadka mixraabka galeen muslimiinta u duceeyna annagana noo duceeyna waa in mixraabka laga soo celiyo. warkamaad fahanteen a'immadu hawshaas ragga masaajidda jooga hawsha waa inaad uga fiirsadaan. qunuudka saxaabada wax idinka sheegaya qunuudkii sayidina Umar iyo saxaaba isku waafaqeen ee Ubay ibn Kacab ku ducayn jiray bisha Ramadaan ummadda ugu qunuudi jiray baan idin sheegaya. حديث دير بهاي وحان رأيك خسية فكان الناس يقومون أوله نسك هوري تكنجرين تراويح ذا مسلمين تو وكانوا يلعنون الكفرة قال هذه اللعنة دي جيرين في النصف الثاني من رمضان نسك ضنبي بشهر رمضان سو شيء طبعا قنوتكم انكم ما بلونه ويجمع الصحابة قنوت كاسقا خلاف قد ضنبي اسكا لكينا يسدح مذهبه وحبا كوسي مشغولي قنوت كواك أبي بن كعب صحابة ودنبي كو قنوت جيرين اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك وخالف بين كلمتهم وألقي في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير ثم يستغفر للمؤمنين وكان يقول إذا فرغ من لعنة الكفرة وصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم واستغفاره للمؤمنين والمؤمنات ومسألته وحورنت اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ربنا ونخاف عذابك الجد إن عذابك لمن عاديت ملحق نوال الآخرية ثم يكبر ويهوي ساجدا. وهذا مقلي سمرك أبي بن كعب تميم الداري صحابة تنجر المسلمين قاب كاسي ودعين جرين قال هذا للعاضة إياه إله بابي قال هذا شد كذا أمة كهر تاجر الدين كوديدا بيني الرسول شهادة بيني الله وبابي إن يبو هذا يبلنقات كذا ما يسنين إله اسكدر اللهم خالف بين كلمتهم إله اسكهر كان قال اسكت شبي وألقي في قلوبهم الرعب قلبك وضع عبسي يرجع الله كطور إله ودش وضع حاسس عذاب كذا عقاب هذا صار يدل الله ودش وقال إله لقيا إله الحق كدم النبي قال الله صلي كدم مسلمين تلود دعين مؤمنين تلود دعين رقي ضمر با مركا قدام بيسنا الدعاء قدام بيسوكو ختم الجري. سيدنا عمر قنوت كيسما سيدين شيقية صلاة الفجر صلاتها كلبا عمر وحقوق قنوت جراسونا اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم العن كفرة أهل الكتاب كصوتك باشم هوس بيسو دكتي قالوا وين لقى صوتك وقال كي يرابا المرة يا كتابك اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نخشى عذابك الجد ونرجو رحمتك إن عذابك بالكفار ملحق. بلو بدأ ملحق نواه الآخرية. اليوم النوبة تعليقية وحو أهل كتابكم باقي عمر وحو يجي وإنما قال عذب كفرة أهل الكتاب لأنهم الذين يقاتلون المسلمين
xilliga iyadu Umar uu qunuudayo gaalada muslimiinta dhibay leeysay maxay ahaayeen yahuud iyo nasaaray ahaayeen wa amma al-yawm bunawi hadu soma fa yuqalu adhib al-kafarata liya'ummahum wa ghayrahum ila gaalada dhan baabi baa la dhig waxba ka soo reebin si ahlu kitaabka iyo kuwa aan diinkaysan meesha u soo galaan Soomaalidu ducada way yaqaaneen haweenku markay duqooshinka markay ducayaan Allahumma Muhammadiyo quwee Allahumma atabiye jib bay dhigi jireen soo garmaysaan Muhammadiyada Allah quwee wixii muslima loo jeeda Muhammadiyo macatabiyana salibiyiinta way idan labada ducaan akhriyay waxaan u soo qaatay inaad ka qiyaas qaadataan ducaa asaguna Abu Hurayra u wariyo Umar iyo Ubay ay ku qunuu jireen Muwatta Maalik bal ku marteen oo tan oo kale lamid ah waa in muslimiintu loo duceeyo gaalada la habaaro dhibkana haysta laga hadlo xisaabahan kale ku wareegaysaan hadaad joojin weydaan waxaad ku waayeysaan imaamnimada ku waayeysaan inta kafta way waxaan u gudbaynaa Umar radiyallahu ta'ala anhu yaani sunnada saxaabada dariiqooda hal raaco tabarkala ma haynee ducada maxaad ugu bakaylaysaan wax kale umadu qaban kartaa wax kale umadu haysan ma jiro umadu ducada kaga bakaylin حسام يركن مركي أذكر رفاتنتين إسكاب الداي قريهن لا هذا لكن دموين تأيي دبك أنا قلنا هيستين مسلمين تمرك سكوب باباين كدعية قال هذا أنا هبارة أديك لو هوستن لسك حرقي تجيس سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه النبي قاعد يشعل بها النبي قاعد يشعل وينية كحنون صدا وحول بور دبية هدوار كان النبي قاعد يبقى الدنيا هيستنا الميوها نبي هلا دفاعها هلا قرب استاغو marka lagu xadgudbo ahad kala midana ma arag saxaabada sidina Umar nabiga hadii wax laga sheegay ama uu qoons dareema in lagu xadgudbayo suu Umar u kulaan jirin u kulaado wali ma arag nabi maxamedna ma sheegin saxaabana ma isa sheegin dhowr tusaalan u soo qaadanayna xadiidkeed garanaysan saxiixanka ku yimid nabiga kaleey salaatu wassalaam xogow qaniima ah iyo dahab looxaana ku qaybiyay meesha jicraan la oran jiray markuu nabiga ma ka furtay yoom xunayn kadib hantida markuu qaybiyo dhamaatay ayaa nin isayn way wuxuu nabi maxamedow cadaalad maad wax ku qaybin maadan garsoorin jawr iyo xaq darad wax ku qaybisay nabiga wuxuu warinka arqabe magaciiba anigu hadaanan cadaalad iyo daacad wax ku qaybinin ya gadaashay cadaalad wax ku qaybin doona Umar baa warkii maqlahay shalay bay ka noqotay wuxuu nabi maxamed oo iga wareeg munaafiqa aan dilay waa munaafiq buu ninka dacani ya rasuulallaah hatta adriba unuqa hada almunaafiq nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam xukumka iyo go'aanka uu gaaray inuu saxan yahay uu sheegay Umar laakiin wuxuu yiri إن هذا في أصحاب أو صيحاب له يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فرح كقد بالليل أنو أفين إسكده نبي وحوش شيء إن كان أزال دل واموتا لكن في الطبوية أساس حلو صوب حلا أما أفو بلا لما بقارن قدر كلاهنا كما هرتي كرر لكن دل واموتا هل كان مركا قاعدة كبح العلماء يتقرأوا حيلة هذه النبي عليه الصلاة والسلام إلهي وحكو كرامي أوسيي السجن النبي أحد كحد قد بأنتم النولا والنبي أوتشوغي وحو حق ولا ينسكع فيه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل رحم الله أخي موسى لقد أوذي أكثر من هذا فصبر صادرت هذه اللي واحد قد بالنبي وحلقة شيء أصو مارجو سنشرين وأسكع فيه شري هذا الصحابة الإيديان والنبي أفعل اللوضان وش يجري إنه يقر لي هنا يصحيه لكن اسكت داي يان الأورنن محمد باللينية أصحابتي يسيبوا كجتك يجري حق العفو والنبي يقول أنتم النولاء هذول لكن النبي وجيريودي أسوي حقي سادة مع فيكرو نيك النبي كأقبحة يكون حد قد وإن لقى أقبحة أسوونه سيد الله أقبحنا وتقرن إنسان بيلت حديث قال سوى تقرن إنسان مالين كله وكيد دولة النبي صحابة فربنا إسرائيل عبد الله بن أبي رئيس المنافقين باكوجري رقدتك بحي إلى المنافق مر بكلي وإن جهادها يعني لما ويل أما لما أضون باعث قنصتي ويدقى الله بين مركي يصير بوهيين بمدكستو وهبر وعضي كي مهاجر وحور يا للمهاجر ويا مهاجرين أبوري
tolla iyo muhaajiriin kiina tolla iyo ansaar uu yidhi waa la kala qaboojiyey rag culummada saxaabada kala qaboojiyey kadibna warkiiba wuxuu gaadhay ninkii ahaa cabdullahi bin ubay bin sawlu baa warkii maqlay wuxuu yidhi ma hadday muhaajiriin bilaabeen annagoo ansaara oo reer yatriba inay noo gacan qaadaan oo ina dilaan kadibna markaan dhaan iska dhicisaanna ay habar wacdaan oo gooni u soo istaagaan oo seefa la baxa wuxuu yidhi haddaan noqdo oon madiina ku noqonno walla muhaajiri dambe ma joogi doono la rajacnaa ila madiina la yukhrijana al-a'azz min al-adall buur wuxuu ka u jeedaa ansaar baa markaa badnayd saxaabiga ka sheekeeyey horaantii hore babacdii hore ansaar iyo muhaajiriin ansaar baa badnaa muhaajiriinna waa yaraayeen laakiin muhaajiriin waa iska daba yimaadeen markay ka yimaadeen miyi bay ka yimaadeen meelo badan bay ka yimaadeen ayaga ansaar ka bata waagi dambe cumar baa warka maqlay cabdullaahi ibn ubay inuu sidaa yidhi nabigu uu yidhi ha la iska daayo cumar wuxuu yidhi dacanii adrib cunuqa hada almunaafiq yaa rasuul allah nabi alla waa munaafiqa aan dila ka leexo ninka adiga maanta adal ku yidhi asaguna acas isku tilmaamay adduunka inuu joogo ma astaahile unuunka aan qaadi iga wareeg buu nabi allow nabi wuxuu yidhi iska daa asagaa baa dhimanaya tiisii baaba iman doontee yuusanna galaafan sumcad darrana aanan ka dhaxlayn inaga dacahu fa ina lianlaa yaquula annaasu ana muxamadan yaqtulu asxaabah laba nin baad soo marteen waxaad kaloo soo marteen xaatib ibn abi baltaca markuu dareemay inuu nabiga khaa'imay inuu nabi allow waa gaal munaafiqa aan dile ka wareeg fa innahu qad khaana allaha warasuulahu waalmu'miniin waxaa afreeya oo qisadaas shaneeya cafwan waxaa afreeyaan u jeedaa qisadii caanka ahayd ee aayaddu falaa warabbika laa yu'minuun ay ku soo degtay yaa lam tara ila aladiina yazcumuuna annahum aamanuu bima unzila ilayk iyo aayadihii la midka ah nin yahuudi ah iyo nin ansaari ah ayaa isku qabtay xoolay isku qabteen hanti baa u dhaxaysay yahuudigu wuxuu yidhi aan ku xukuntana nebi maxamed inoogahayna kala xukume kii ansaariga ahaana wuxuu yidhi munaafiq buu ahaaye ansaar munaafiqiin baa ku dhex jiray wuxuu yidhi inoogee kacab bin ashraf inoogee aan ku kala baxnay adu waa la wada hadlay oo hadlay hadalka waxaa lagu go'aansaday in loo tago nabigaa loo yimid calayhi salaatu wasalaam nabigu gartii buu fiiray wuu dhegaystay muddaca calayhii waa dhegaystay sheegtay iyo lagu sheegtay warkii muu ku dhegaystay bayanadii waa xukumay wuxuu u xukumay nabigu calayhi salaatu wasalaam ninkii yahuudigaha baa garti yeeshay waxaa laga xukumay kii muslimka sheeganayay muslimkii racfaan iyo abiil buu qaatay wuxuu yidhi nabi allo waxaan rabaa inaad cumar noo celiso cumar ku kala baxno nabi wuxuu yidhi ordaya cumar baa loo yimid yahuudigii baa hadlay wuxuu yidhi yahuudigii haddaan ahay anigu cumarow waxaan u tagnay nabi maxamed gartaasaan u geysannay muxakam baan ka dhigannay wuuna kala xukumay saasuuna ii xukumay ninkanna hawshuu kumuu qancin waa biyo diiday aduu racfaan iyo abiil kuu soo qaatay wuxuu yidhi war ma runtiiba adiga islaamka sheeganaya ninkan yahuudi warkuu sheegaya ma runtiiba haa buu ihi saas weeye noo kala xukun hawsha waxa yidhi suga buu ihi guriguu galay seeftiisiiba hoos soo gashaday kii islaamka sheeganaya buu kala gooyey yahuudigan cagow wax ka dayay yahuudiga cagow wax ka dayay nabi maxamed buu ku cararay wuxuu nabi allow haddaanan cagaha ku baxsan lahayn cumar ninkuu i raacin lahaa wuu igu sidki lahaabu ninkana dhimay cumar hadduu dareemo nabiga in lagu xadgudbahayo wixiisu waa maxay seef weeye ruuxa muslimka iimaankana saasaa laga doonaya nabiga waa la caayi jiree maxaad hadda haysaan waadii regaarisa warkoodii ma rabo aan xanuunka ka qaadnay iska ilaali waadii regaarisa ha ka istaaga masaajid waaga nabiga lagu xadgudbay markaas wuxuu yidhi nabiga asagoo nool baa la caayi jiray bal ibdarada eeg bal qaayaha iyo meeshu ku halqabsanaya diin xumadiisa eeg nabiga waa in la ilaaliyo loo dhiidhiyo la difaaco xayan wa mayitan xadiidkaas aahaar dhowra oo fara badan baa ku timid sheekhulislaam ibnu taymiya uu leeyahay majmuucaha way sugan tahay bal asaaniid goone oo mursala ah waliba mursal saxiixa timid xadiis iskii marka loo firo saxiix waa ma jiro laakiin bimajmuuciha aahaar sugan weeyo qisada sugaysa saarimkuna hawsha sheekhu ku faahfaahiya ibnu kaiirna aad buu hawsha asaguna u keenaa ibnu mardawaahi ibn abi xaatim ibnu jarir tabari tafasiirtooda musnadada bay ku keenaa
qisada shanaad ee idin raacayseen nabiga xurmayntiisa iyo weyniinta iyo difaaciya ku tusay waxaa ka mid ah maalin maalmaha ka mid ah ayuu masaajidka nabi maxamed soo galay cumar isagoo dhex fadhiya iyo wuxuu arkay laba nin oo halkaa ka tanaadinaya oo dhaqdhawaaqahaya oo si dheerdheer u hadlaaya saxaabadii ansaarihi muhaajiriin dadka nabiga yaqaana hoos bay hadalka u dhigayaan nabiga agtooda ku xabaalan u muuqda nabigu hadduu nool yahay hadduu dhintay xurmadii iyo weyniintii u lahaa weligiiba ayuu leeyahay niman baa reer daa'if oo laba ah oon madiina ka warqabin masjidkana aan aqoon xurmadiisa iyo nabiga oo reemiya yaa iska tanaadooday oo iska dhawaaqaayay si dheerdheer bay u sheekaysanayaan hadal taagtaagan saa'ib marka wuxuu yidhi cumar baa intuu quruur qaaday buu igu soo tuuray ibnu yaziid saa'ib ibnu yaziid markaasuu ima way waan u imid buuri waxaad yeeshaa labadaa nin igu yeedh labada nin baan u yeedhay buuri way u yimaadeen wuxuu yidhi maxaad ahaydeen wuu hubsanayaa inaysan reer madiine ahayn qorshe xumahana reer madiine aysan la imanaynin wuu gartay koyta yihiin oo socota yihiin xisaab wax badan ka khaldan yahay war maxaad ahaydeen buuri waxay dhaheen reer daa'if baan nahay daa'if baan ka nimid xaggaas reer daqiif wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay dad reer madiine noqon lahaydeen ulsaan idinku wado baan idinku lafa bixin lahaa masjidka nebi maxamed waa cod kor ugu qaadaysa ma idabsataan hoos u dhigo codka laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti nebiyi ma aha markuu noolaa bese hadduu dhintayna oo masjidka nebiga joogto oo qabrigiisa ag joogtana waa la mid qoliyiin hadda nabigaan ziyaarinta hadda hadaan meesha ku dhawaaqaysa ilaaliya bakoorada cumar haddii laydiin waayo dembi baa laydiin qorayaa nabigu xurmadiisa meelha kaga dhicina لو كنتما من أهل هذا البلد ما فارقتماني حتى أوجعكما جلدا ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله وعند قبره حديث أسأل كيسي وتكنس البخاري بأسوه سارة وحنكو ختمة إن قوامضا النوع عسى خير كبضاني أو عمر أولها قساءات ديرو طريفاء أو نحمرتي وذلك اللي ورنجي زيد بن السعنى اليهودي هي النبي قد أحمرت ninka zayd ibnu sacna raggi islaamay buu ahaa ee culimmadii yahuudiyeed ahaa waagi dambana wuxuu ku shahiiday dagaalkii tabuuk buu ku shahiiday iyo iskiiba u dhintayba waa la sheegay duuliyaanka inuu ka qayb qaatay cinda ahli siyar waa muqarrar wey ninka wuxuu yidhi asaga qishada ka sheekeeyey anuu nabiga maalin ag jooga u idhi ayaa waxaa u yimid wadaad raggiisi ka mid ah wadaadka wuxuu nabi allow waa dhoweyd ayaan dacwo u baxay xaggan miyiga gaadhay kadibna niman reer hebela ayaan diinka u bandhigay waxaan ku idhi haddaad islaantaan nolol baad barwaaqaad helaysaan gabdhaha wiil idin dhali geelaan dhirga dhali nabad baad helaysaan dhibkanba waxa idinku waa gaalnimada islaamaan ku idhi oo haddaad islaantaan fartaad muutanaysaan baan idhi way islaameen buuri wax yar markay islaan ahaayeenna abaar baa ku dhacday diinkii inay ka baxaan marka horeba hunguri iyo sandareer ay u soo islaameen inay haddana ka jiitaan islaamka ka holeelaan baan ka baqahayaa nabi allah bal wax yar oon ku caawinoon u geyna raadi saxaabiga yahuudiga ka sheekeynay markaasoo nabigu wuxuu fiiriyay nin la socdo oon u malay inuu cali yahay cali buu fiiriyay cali buu la hadlay wuxuu yidhi maxaa yeeloon heli karaa cali wuxuu nabi allah wuxuu u dambeeyey waan bixiyey waxaa maayo wax yaroo hanti uu cali u dhiibay yuu yidhi waan qaybiyey iyadna way dhammaatay nabigu marka ninka uu la hadlo wuxuu iga warsug bal inta wax ka helaayay iga warsug fikradda waa fikrad fiicane intuu muslim gaaloobi lahaa adduunya darteed u gaaloobi lahaa waa in la badbaadiyee bal iga warsug halkaasaa jaanis iga soo baxay buu aniga yahuudiga ah waxaan idhi maxamedow lacag aan ku daymiyo timir baana rabaa inaad aan kaaga qaato lacag baan kuu horumarinaya salaf ama salam waxaad ii jirteen 80 dirham ama diinaar oo dahbaan kuu horumarinaa ku siinaya waxaana kaa rabaa intaasoo goosaradoo timir ah ama intaasoo wisqo oo timir oo beerta ree hebel ah ansaari beeray ka lahayd beeru way kala fiicnaayeen beer cajbo ka baxda beer sayxaane mid barni ah timirtu 100 nooc way timirtu وأصناف الحمق بن حزم أكثر من أصناف التمر تمرت النوع يديدو يدقون من النوع يدو ويسليك يمر ذلك لو أي سكبت نين نوع يدو دقون نمط وإنه عبادة تمر مركو شيء وهذا قيمة بدن يعني وإنت أصو وسقي أو تمر أيان كهرباء مدهب لايو مال هبل العقد نوات هشيش كمان قال لي بود نقول العقد بقى العقد بمركه وديبي
wadaadkii lahaa reerkii abaartu ku habsatay ee laga baqay inay gaaloobaan in wax loogu qabto tiibaa wax loogu qabtay hawsha waxaan u yeelaya ibnu saxaabigu tilmaamihii nabinimadoo dhan baa nabiga ka baadhay buuri waan ka baadhay kulligeed waan ka helay buuri laba tilmaamood oo ambiyadu leeyihiin nabi maxamedna lagu tilmaamay kutubtaanna ku qoraa oona weli nabiga ku arag baan rabay inaan hubsado oo nabiga aan ka arko labadaa tilmaamood maxay ahaayeen yasbiqu xilmuhu jahlah walaa taziiduhu shiddatu ljahli calayhi ilaa xilma labadaa tilmaamood baa lagu sheegay nabiga inuu leeyahay aakhiru zamaanka soo baxaaya ee carbeeda ismaaciiliga ee min bani ismaaciil ah wixii kaloo dhan waan helay buuri khaatimkii qur-aankii ummadiisii tilmaamihii saxaabadiisi kulli waa helay buuri laakiin labadaa tilmaamood baan weli aan nabiga aan arag buuri oo maxay tilmaanta koobaad yasbiqu xilmuhu jahla dulqaadkiisa iyo meelka dhiciisa waxaa hormaraya dulqaadkiisa xoog badan oo adag si walbad ugu xadgudubtana nabi maxamed waxaanu kala kulmaysaa dulqaad iyo deganaansho markaad sii waasheed adugu isku xaarto asagooba sii qaboobahaya labada arrimood baan rabay inaan hubsado kadib muxuu rabaa kadib wuxuu yidhi san hawsha u hubsado xilliga aan ballanoo la gaadhin oo maalmo ka dhiman tahay baan isoo daayay waxaa dhi maxamedow xoolihii adiga qabtay baan kaa rabaa 70 wasqi ama 80 wasqiya timirta halkaas soo dhig intaan idhi baan nabiga weliba ku boodo on kulleetiga qabtay oon jafaalay xoolahaygiisii maxaad iskugu dhashanaysaa waa idin aqaana reer saa u tihiinba reer bani cabdilmutalib waad ku xuntiin dayn bixinta markaad baahantiina wax nasiiya baad dhahaysaa hadhowna daynta bixin maysaan reer idinka liita intaan oo lama arag nabigana waa halkaasaan hayaa buuri lama gaadhin hadda xilligii ballantii lama gaadhin muxuu rabaa nabiga inuu ka cadheeyo fiiriyo qaabka u dhaqmo suubano calayhi salaatu wasalaam nabiga asagoo degan buu ila hadlo wuxuu ballantii lama gaadhin deyntana waan ku siinaynaa reer cabdilibna carab nimanka u gobsan weeye maxaa dhiboo jira tartiib kadib waxaan arkay buu nin ag taaganoo indhihiisu saa u wareegahayaan oo dhiiggantamay ninka waa kuma waa cumar ninka indhihiisa cali baa la jooga abubakar baa la jooga saxaabadan cumar waxaan arkay buu indhihiisu sidii ay u wareegahayaan kalfalag fadaadiir sideedaba indhihiisu u wareegahayaan buuri wuu kullaaday wuu gubtay nabiga kuma dayn marka wuu hadlay cumar hadalkiisii baa idinku dul akhrinayaa ونظرت إلى عمر وإذا عيناه تدوران في وجهي كالفلك المستدير ثم رماني ببصره وقال يا عدو الله أتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع وتصنع به ما أرى فوالذي بعثه بالحق لولا ما أحاذر فوته لضربت بسيف رأسك ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر في سكون وتؤده حوري عمر وركس عبيستي حوري عدو إله يو ما رسولك إلهي باد كل إذا وحن مقليه ما وحد قصة ما ينسى وحن أشيء إذا أركهايو إلهي بان كل أرتي هدانا كبقي النبي إنا قعن ضعفه نبي هو حرمين وقعن ضعفه أمر كيسو جبي وادي دنيا نينكنا فروي وقنيزية فرويها وحو قصة ما هي سيفت مقاتيسا سيدي منافقي وكله مكدكتا مسمحات ما يسابي كتاغنتي الله النبي حق صو دريبا ان كدارتay hadaan nabiga inaan gacan dhaaf aanan ka xumaanaynin waa ku dil lahaa madaxan ku goyn lahaa rasuulka ilaahay umar muku hadlahayo hanjabahayo si tartiiba ayuu umar u fiirinaya isagoo degan oo xasiloon umar baa la hadlay marka nabi wuxuu umar buu la hadlay umar ya umar ana wa huwa kunna ahwaja ila ghayri hada an ta'murni bi husn al-ada وتأمره بحسن اتباعه وفي رقبني بدو فيرس باش والله دشاي حور عمرو اني يودات كان يهوديغا دل iyo dagaal waxaan ka ahayn baan ka mudnayn maxaan ka mudnayn ana ina ataa nabi allah hadii deyn ba lagu shato xoraa iska bixin inaad dhaahdo asaguna aad tiraado waxaad leedahay xaqada si gubannimo u raadso waraduna goodnimo deyntaada u raadso nabi allah aduna si fiican u deyn bax انت صافعينات لكن هنجبادي قربان كو قادايا ماشي موتال لكن عمر نبي يقول له حدد بها يوركا كدب حول عمر وأرد حلي ويان لا غارين مر هدو انا قبصداي خوليسي سي هانتو نبي ملكو اغابر لا سي
waxaadna ugu dartaa buuri laba 70 kiisus ama 80 kiisus waxa ugu dartaa 20 u raaci 20 dheeraad nabi Allah maxaan u siinayaa intii aad ka nixisad ka argixisad sababta oo la baxday oo isku xaari gaadhay wadaadku magdhaweeyo weeye gobonimadu fiirsaa nin loo dhaarto Umar indhaha wareeji maxaad ka sugaysaa soo ma nixin oo naftu ma qabanin magdhawi weeye buu inta waa xaal iyo xumayn 20 wisqina u raaci marka inta uu nabigu Umar farahay ma maqlahay Yazid ibn Sanca wadaadkiisa Yahuudiga ma maqlahay war israacanay hantiisi baan siiyay 20 baan ugu daray markaas 20 maxay ahayd intaydu waa tani nabiga amray buu inaan kuugu daro maadaama aan ka ku cabsiyo argixisa kugu noqday maalinkaas uu islaamay saxaabigii Zayd ibn Sanca intuu dambeysay wehel Soomaa tilmaantii uu raadinayay uu ku habsaday waagi dambe dagaal kasto nabigu ka qayb qaato uu tagi jiray haduu nabigu duulan u bax waa raaci jiray hatta istashhada aw istushhida fi Tabuk idan ninkala mis wuxuu xadiidka markuu ka hadlay wada hadithun hasanun mashhurun fi dalail an-nubuwah tadib al-kawn sida ku yiraahda ibn abi aasim ba soo saaray ibn hibban tabarani iyo qeyrkoodba xadiis sugan way umar marka mar walba uu dareemo nabigu in lagu xad gudbayo sharaftiisa meel laga dhacayo la gacan dhaafayo la xumaynayo aan la qadarinaynin bahdil lagu sameeynayo gobonnimo iyo islaamnimo muujin jiray jacayl nabi kaleey salaatu wasalaam buu muujin jiray waxa kamid ah waxyaabaha ku sida nabiga jacaylkiisa iyo difaaciisa uu weyneen jiray Fatima u yeeray maalmaha kamid ah hawl intii looga sheegay niman gurigeeda ku shiri jiray oo xogo uu ka baqaynay fidna keenan ayaa looga sheegay markaas uu tagay Fatima wuxuu yaa binta rasuulillah rasuulka ilaahay gabadhiisii wallahi ma min ahadin ahabbu ilayna min abika wama min ahadin ahabba ilayna ba'da abika minki wuxuu ilaahay baan ku dhaartay ahad nool bini aadam rasuulka ka jacayl aabahan ka jacayl ma jiro aabaha haduu xijaabtayna ahad aan adiga ka jecelahay ma jiro ahlu bayt rasuulillah sallallahu alayhi wasallam ahad ka jecelana ma jiro Umar saadarteed caruurtii yaryaraay ahlu baytka cali dhalay ama Faadima ka farcamay ama xataa reer Bayl Abbas aha xooluhu siiyo musharu siiyo caruurtu umu siin jirin Usaam ibn Zayd wuxuu siiyay Abdullah ibn Umar muusan siin jirin reer Bani Hashim xooluhu siiyo reer Bani Adi muusan siin jirin wuxuu oran jiray nabiga ka dhashay asagaana idinka jeclaa wuxuu ku dhaartay in ayada nabi maxamed gadaashi ruuxu ka jecel yahay uusan jirin iyadoo sidaa tahay buu anoo sidaa ku jecel nimankan fidnada wada hadaan kugu arkay iyagoo meesha ku shiraayaan buulkan gubaaya iska ilaali qaybta dambe xarqiga buulka ah wadaada xogo dacfi ku sheego nakaar ku tilmaan laakiin inta hore xadiidku waa xadiid sugan hadduu arka nabigu calayhi salaatu wasalaam dhibaato adduunya ay ka muuqato Umar waa barooran jiray waa ooy jiray nin aad u qalbi jecel nabiga jecel ayuu ah oo danqada maalmaha kamid xadiidka dheeraa nabigu soo booqday u soo galay aman duhura galow nabigu ku jiifay ama darin uu ku jiifay oo wax gogol ka xigin oo uusan ka xigin oo maraysan ka xigin iyo nabigu ku seexday darinta ayada ama galaha asaga kadib jirkiisiba mardin buu ku sameeyay raad buu ku sameeyay عاود la sameeyay la falkii meesha iska qabataa de waa diilin bay kugu sameynaysaa ay ku qabanaysaa galowna waa aragtay xarigi baa ku qabanay nabi maxamed markii intuu kacay fadhiya galii ku fadhiya jirkiisana ay ku yaalaan ulihi ku yaalaan galaha ulihiisa ama caawdi ay ku taalo ayuu arkay markaas uu ooyay Umar waa ilmeeyay nabiga Allah duu maxaa ka ilmeynay Umar loo ooyaysa wuxuu nabi Allah adduunyo xumaanteedan la ooyahayaa buu kisra iyo qaysar ذهب iyo fido iyo waxay doonaan bay maanta ilaayaan sariiro waaweyn bay iskaga jiifaan adduunyo waxay ka damaaciyaan ama ka laacaan ay ka calmadaan bay ka helaan adigoo rasuulka ilaahay ah oo adduunka ahad ku khayr badnaa oo wax walba ilaahay uu ku siin karana sidana maanta dhabarkaadii iyo jirkaadii yahay buu nabigu wuxuu ama tarda ya Umar an takuna lahum ad-dunya wa lana al-akhirah miyada hal ku ahayn ayagu adduunka inay wax moodaan oo adduunka iskaga bardoodamaan annaguna aakhara aan ku raaxaysano oo adduunka ka zaahidno waxa soo adduunyo ma isdaji baa leeyahay oo in ma leeyahay marka nabiga xadiidka saxiixku ku yimid garanaysa nin aad iyo aad marka nabiga u jecel u xurmeeya u weyneeya hadii lagu xudgudbo u dhidhiyo u heeliya hadii dib yar uu ku arkay ilmeeyo ilmada doogo aha dadna wuxuu ugu jeclaa rasuulka hadii rasuul laga taano wuxuu ugu jeclaa aalu baytka
dadka marka doonaya in aalu beydkii cumar iska hor keenaana muslimiin waa munaafiqiin zanaadiqa wey dhiigooduna waa bannaan yahay fil xilli wal xaraam meesha lagu arkana gaadhiga ha la mariyo hadda kor baan idiin sheeg intaasi marka waa intaasaan ku soo ururinaya cumar wuxuu kaga duwanaa saxaabada oo dhaqan u lahaa nin walba muslimiinta wax u taray wuxuu jeclaantay inuu abaalgudo maalinka ayadana wuu u hayn jiray abaal nin galay la arag baa nin gudasa lama arag abaal nin galaan la arag nin gudana la arag cumar baa geli jiray gudana jiray nabi maxamed baa geli jiray xaggana gudi jiray hadduu awoodi waayana ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa wili jiray sida abubakar oo kale maalin maalmaha ka mid a aslan baa ka sheekeeyey cumar baan soo raacay buu suuqan soo aadnay annagoo suuqa soconna yaa haweeney baa ka soo daba oroday buu gabadh yar oo naag dhaxaad ah ayaa ka soo daba oroday cumar bay isku dhajisay waxay tiri yaa amiir almu'miniin halaka zawji wa taraka sibyatan sigaara ninkayga waa dhintay abaar adagna waa nagu dhacday carruur yaryarna waa ka tagay ninkayga ilaahay baan ku dhaartay wax la cun iska daayay mijimo iyo dhilaandhil ma karsadaan bay jir dab ma saartaan badar iyo beerna ma laha candhow irmaanna ma jirto waxaana ka baqayaa bay tiri haddaan sidaa ku aamuso in abaartu ay baabi'iso isaa ku dhammaadaan waxaana ahay jira anugu aan kuu nasab sheegtee khufaaf ibnu iimaa ibnu raxadata alkhifaari gabadhiisi baan ahay jiri saxaabi uu garanayo bay ku abtirsatay waxay tiri waqad shahida abi lxudaybiya aabbahay dagaalka xudaybiya adiguba aad joogtay qaswada xudaybiya ka qayb galay nabigu la joogay maca nabi sal ly slam intaa markay tiri cumar waa istaagay shag meel adag baa laga taabtay gabadhii oroday ee qamaamtay ee cumar xurmadiisa aan eegine laacday ee hadashee calaacashay waxaan dumar uusan ku arki jirin ku samaysay markuu yidhi markay tiri waxaan ahay ina khufaaf ibnu iimaa ibnu raxadata alkhifaari baan ahay wuu istaagay maba dhaqaaqin buu ihi faqaala marxaban binasabin qariib soo dhowow buu dhalasho dhow baad sheegtay hilib wanaagsan oo dhow baad ii taabatay markaasuu guriga ku noqday aslan baa ka sheekaynaya awrtii joogtay rtigu ugu xoog badnaa ayuu raashin ka buuxiyey buui tuu fadhiisiyey oo kabaalla ku xidhay heeryadii saaray raashinka qaban lahayd ayuu 4 xarshimood saaray buui uma insarafa ilaa baciirin dahiir dahiir waa maxay waa qawiyu dahri baa loo waa artiga dhabarka adaga wax walba qaada 12 jirka awrta kale xoog badane ayuu raashin ka soo buuxiyey khiraaratayni 2 xarshimood 200 wey oo 400 kiilo raashin u saaray malaahu ma طعام raashin buu ka buuxiyey guradana wuxuu u saaray oo u gurgureeyey dhar iyo dhuuni wixii kale la cuni kareeyay ama iidaan iyo koosaar ah ritigii uu soo kaxeeyey gabadhii buu hoggaankiisa u dhiibay wuxuu qabo kaxayso carruurtaada la aad ilaahay baan ku dhaartay wuxuu yidhi intuu intaa kaa dhammaanayso ilaahay baa roob keeni doona roob iyo baraka iman doonta haddii wax la waayona nagu soo warceli riti kale aan kuu soo raraacaya saxaabadu waa xanaaqin la socdiyey ragga oo dhan waxay dhaheen cumarow gabadh miskiin oo magaan allah ku tiri xoogo yar baa ku filaa loor baa ku filaa niic baa ku filaa gudub baa ku filaa riti weyn oo qaashi ah oo 12 jir ah xarshime ka buuxi oo dhar ka buuxi oo dhuuni ka buuxi oo sonkor wax walba saar oo iidaan saar oo koosaar saar kadibna haddana u ballanqaad inuusan iloobayno isha baalkeeda ku haynaya ka warqabaya waxay dhawaad ku badisay wuxuu war ma haysaana aamusa gabadha miyaa taqaanaan hooyadiin ha idin weydo gablame gabadha miyaa taqaan ayada wuxuu aabbaheed khufaaf iyo walaalkeed oo ina khufaafa oo waxaan garanayaa buu intay nabigu ciidan u dhiibay oo qalcad cunaqabateen ku qabteen oo gaaladii jabiyeen qaniimadii ay keeneen aan qaybsanayno weli wax nasiiya aan leena gabadhu waa ina khufaaf buuri ninkii islaamka maalinka wax taray ee gaala kala gaabshay baa dhalay gabadha gabadha la mid maaha waxbay dheer tahay qad dakarta binasabin qariib isku qoys ma cumar iyo khifaaf waa khifaari abu dhar bay qaraabayeen cumar waa reer binacdi waa nin qurasha waxay iskugu yimaadaan 20 awow kadib ama ka badanba Soomaaliya inta isku jirteen ka badan bay isku jiraan
nasabka laakiin sheego waa kee diinta waa diinta waxtarka jihaadkii halkan ku ka hadlaaya oo annaga saxaabad hum asbaxna nastafi'u suhmaanahuma fiih leebka iyo heleen nabigu wuxuu siiyay aan leen wax naga siiyay nabigu nafal fiican buu idin siiyay dadkii wax na taray maalinkan wax heli karo waa inaan wax taro leeyahay umar bay wax tareen mise diinkay wax tareen islaamkay wax tareen xadiiska sahih bukhari baa soo saara waxaa kamid ah waxyaabaha ku tusaya inuu wafi ahaa liman qaddama fi lislaami shay-an nin walbo islaamka wuxuu u taraa inuu abaalgudi jiray maalin maalmaha kamid a dhar badan oo la keeno madiina la keeno ciraaq laga keeno shaam laga keenay iyuu qaybinayay sidana cumar wuxuu u qaybinayay dumarkii reer madiina xijaab ahaan ugu qaybinayay markaas waxaa soo hadhay hal joogo aad u wanaagsan oo quruxsan baa soo hadhay oo ay gabadhi mar qaadato dadkii la fadhiya waxaa la yidhi jooggan wuxuu ku wanaagsan yahay gabadhi nabi maxamed inaad u xidho gabadhi nabi maxamed markaa uu qabo cumar waa tee umu kalsuum gabadhi binti cali u dhalay yarayd wey waxaa la yaa amiir almuminiin waa taqaanaa qolyaha madaxweynaha la jooga inta badan waxay jecel yihiin madaxweynuhu wuxuu ka helayaa ama asaga dantiisa iyo faamilkiisa in lagala hadlay intan bal wiilkaada sii caruur kale buu hebel fiiri bal islaanta heblaa ku celi xogo waxaa lagaga raadinayaa sumcad iyo magac iyo qalbi jiriic baa madaxweynaha lagaga raadiyaa qolyaha nacamlayaasha waxaa yaqaana laakiin saxaabadu waxay u arkahayeen in ay u mudan tahay gabadhi nabi maxamed bay aadeen cumar kuma qanceen gabadhay aadeen cumar laakiin asagu waxa u daaran far kale u taagay wuxuu yidhi maya wuxuu yidhi ummu saliitin cafan axaqu bihi ummu saliid baa isku joogaan iyadaa mudan buur iyadaa ku xaq leh ayadaa cid walba ka mudan midkan quruxsan ee soo hadhay ee gabar mar qaadato ee dhar kaleba ka fiican cidda maanta istaahisha buu yidhi in la siiyo waa ummu saliid waa maxay buu yidhi cumar waa gabar ansaariyeed buu yidhi oo nabiga beecan la gashay maalinka aan uxud dagaalamaynayna sibraaraha gabadha noo tolaysay cagadaha biyahana siinaysay wey buuri xagee buu noqday abtirkiiba dib u qaaday uxud buu ku laabtay haweenkii ansaar buu saa u fiiriyey gabdhaha maantoo jooga maalinka uxud ay ishu dhiigteen aan jabnay gaalo iskugu kaaya tagtay ilaahayna noo gargaaray gadan looga gargaaray gabdhihii naftooda iibsaday ee noo tolahayay sibraarku markuu dilaaca tolhayay ee biyaha ka buuxinaya ee caanaha ku shubahaya ee subaga ku shubahaya ee malab ku shubahayay ee gurmanaysa ee dhaawaca daldalaysa gabadhaasaa maanta u mudan buuri iyada baa loo yeedhay fartuu ka saaray maa sidee baa le fa innaha kaanat tasfiru lana alqiraba yowma uxudin qaala cabdullahi albukhaari tasfiru ay takhiitu way noo tolaysay muxuu gudayaa gacantii iyo abaalkay noo geysatay ummu saliid yowma uxudin muslimiin bay u gashay ma cumar bay u gashay muslimiin bay u gashay cumar abaalka islaam loo gala nin gudu ah oo wafi ah waxaan u gudbaynaa min aqwaalihi alkhaalida cumar wuxuu ka tegey xikmooyin dhaxalgal ah oo meel walba taabanaya oo uu kaga tilmaanaa asxaabti kale wax yar baan ka soo qaadanaya kadibna mawduuc kalean u gudbaynaa الإمام البخاري في الأدب وحصوص رأي غير كيبا إنه أورنجي سيدنا عمر مالي مالما كمدا أيوم صومري مساجد مركز وركودات خطبين أيها الله يوم حاضر تشيدني وخطبة الديري وهذا الترميي أو دلدلاعي أو صرفي أو تعجعي كذبوني كيف والله الله وحوري إن كثرة الكلام في الخطب من شقاشق الشيطان إن كثرة الكلام في الخطب من شقاشق الشيطان الشقاشق وجمع شقشقة شقشقضنا ودوبيدة وطوبت رتيكو صوت ورسمان رتيكو قوة باشا وين صوت بوفنكا بالك عروت بوفيان وين باشا سا شقشقة الليل هذا صورتيكو كمان شنقريو انتو سودا كمان شنقريو مقو يقول كما سيو wuxuu hadda aragtay wadaad meel taaran oo daruuriye ma ayo daldal ma ayo hadalka dheereeyay oo dadka rigaysanaya ka soo qaad riti doobidhisan haya وانا ور شيطان بوري وانا ور شيطان ان كثرة الكلام في الخطب من شقاشق الشيطان اسك الى لي رجنا خطبه مسايده كخطبيه خطبه غابيه صلاه امته دheereeya in yaro waana ilaahay ka cabsada noo duceeya nabiga ku salliya ayad quraan qajac ka siiya wa aqim salaa inuu dhaha
waxa iraga daaya wax ay tarayso lama arko waad maqli ninku yiraahdo waa dhaweyd baan muxaadar hebel fariisto cilmi baan ka faa'iideystay كلمة وداد ملك تشيدين هيا فريستوي مثلا كفهم حرو كلها أما وداد إنها تلاقي يابا لكن خطبة ما أنت وحكفهم روح كلها أركميس خطبة ما أنت مثلا يقب حظي حرو كله أما عامي كلها أركميس صابك وامعي أنا وحنوم ملي وأما الله يجي إنه ما لا شيء ضاينا ولا جي يابا إخلاص كإسكير ودادكم ممكن ماشي صوف فولا وحسكر دعين هيا ضد كان قنعك صوف يرن هيا خطبة عجب قبطوي الله يا من دقها كجلي يلفها وقات رجيسو هكامر قاتين وذات بلاءنا تهي ما انتهى آمنين حسابات كسكو قلا هي حسابات كتوي كقلا أنا محد انتي إخلاص الدور دنتنا كلمة نعفية الميس كلمة نعفية الميس ولذلك بعض السلف الدور هذا كان وانين يا مركو يستاجو هذا صور قرآن صور فريستان كلمة وجوجين جريبة أفر شيخ ورا له الله وحوش يجو هذا يطمن نقدان هذا الكوتشين هياب محاجة نية بس بدشوا له مركور ودادان أفر طائر سكلاش كيسي آيده مرة دي لبطي وعيقلي سبوري تذكر قنع بالشدة قنعي ونين فصيحة وبليغة ومتكلمة وهضلعة اسكدك وأفمالة هاوش هذا يتودنا شيطان ما ماشي يمد هاوشا اسكيلاني وحاكمده كلموينكيس خالدده هاي وحكو اولكا اي حكموينكا نقدي الاعتزاز بالاسلام كلمده كصابسني سيدنا عمر وكيل بحي شام تجي مركو خيلك لو wareegay ابو عبيدنا uu joogay aaga asaga عمر hortigiisi saaran baa waxa lagu soo beegmay meel biyo fadhiyaan laag ama faraq weyn oo biyo fadhiyaan baa lagu soo beeg oo in la jiiraba mooyaan aan la talaabi karin عمر hortigiisi buu ka dagay خفكي بوسيبتي كبيرنا واسيبتي وانا حيتي لقدي بيه الحقاضي وانا امير المؤمنين ابو عبيده الله وحور يا امير المؤمنين اظن مدحويناه والنصارى كفرنها ويهود كفرنها يقول له سوغها وام حيسيد اسلام كبروا حقد دقه ودحقادي حقد دوبده فرها ولا جلي حقد حيدني ما فرسك ادو سامرتيغا ما ساسن كو تاغتid maxaa yeelay dadkii baladka ku fiiray madaxweynaha muslimiinta natusa aw waka dhoo dhax qaadahaya anaga bahdil bay nagu tahay sidaas Abu Ubayda yiri Umar muxuu yiri awwa law yaqul dha ghayruka ya Abu Ubayda jacaltu nakala li ummati Muhammad hakuy wuxuu yiri ma hadalkaasi nimaan adiga hayn maanta muu dhaho Abu Ubayda uu ka cabsanay Umar oo Nabi Muhammad baa meel adag geeyay Abu Ubayda lama dhawaan karo أبو عبيد ونمان هذه المانتة ويرد ما يكسب بحلا بوري هذا يكسب بحلا نمان هذه أهين صاروا قراعه ومضى محمد باكو عبر قال الله يدبور وحن كل ما نكازجا كذب الله الله وحيدي ويرد عن ربوات إنا كنا أذل قوم أبو عبيد ويكاس بحلا يوري بني آدم يهودي النصاري الريشان بعد شرف كرادين زي عزهم مايا ويكام مقنطا ماشي عز وجرمادا آدم إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام بني آدم كدنيا كنا نمان دتك وجود ليسن بان هين برادنا عربنا ورنتي ريك سرابا دوغميسن جري او قيصر با غوميسن جري او ملوك حمير يمن فديده با غوميسن جرتي عرب maxay ahaayeen niman ganata oo gaajo baabiisay marna xabashi wuxuu raadsaday marna halkaas rixlata shitaa iyo sayf bakaylaha caaysada ee ahaayeen naftu hayso Soomaalida amka ka sheekaysaa markii inta abaar ku dhacdo bakaylaha ay u gaarsadaan way isku caayaan dayrtii abaartii bakayla qaladka yiraahdaan ganatay ahaayeen gabraarto waxba aan haynin Quraysh Arab dadka adduunka ku nool dadka ugu liitay ahaayeen Ilaahina muxuu ka dhigay dadka ummadda ugu sareey maxay ku noqdeen bil Islaam Umar hawshu rabinu faansiyo inna kunna adalla qawmin fa a'azzana Allah bil Islam famahma natlub al 'izza بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله حلو مركز تون اسكو داي ان عزه يا شرف يا جول يا غبنما كهلو وددي إله نقول عزه ودان كان هين وان دلونابو اسلام كان ربي كوغو عزيه امه دينك ku dhaq bagbagtan iyo waxba dhiiqan la shiriska jooji dadka cadaalad iyo islaamnimo kula dhaqan iska jooji laakiin ha iska gaadeen annagoo dhiiqada shiirayna yaan sankooda caana ka leesaynaa حديث كاستوات قرنيسة
وحاكمدا حكموين كيسي تابدا قالي إياك وعثرة الشباب إياك وعثرة الشباب إسكا إلالي ترنترده إيا كفمدا دالنيارada oo kale ha degdegin xaajooyinka ka fiirso ka baaraandag miidaami xaajada gorfee la fogor kadibna go'aankeeda qaado hawsha waxa ka sheegay qabiisa ibn jaabir al-asadi baa ka sheekay wuxuu yiri anoo soo xarmaday xaj soo xarmaday ayaan cawl ama garnuug baan yaan dilay buuri leeb baan ku dhuftay way dhimatay hawshan haddana yoomaad culimada weydiis waa soo wad khaldantay nina markaa aqoon badan lahayn baa markaa hore cumar baan u imid oo xajki jooga su'aashii baan weydiiyey nin aad u cadna uu garab fadhiyay buuri oo waji dhuuban cabdiraxmaan cawf buu noqon doonaa cumar baan weydiiyey cumar oo maanta anoo socda ayaan ugaadh dilay maxaa isaaran lagu leeyahay ninkii garab fadhiyay casaayo quruxsanaa wajiga dhuubnaa buu weydiiyey wuxuu yiri maxay kula tahay neef ari ah ka badan miyaan ku xukunnaa ninkana wuxuu yiri waa ila tahay neef ari ah ku filan garnoog iyo cawl neef baa lagu dandhabaad neef ari ah markaasuu yiri neef ari ah gowrac dhiigga daadi markaan ka istaan dhalinyaraan ahayn oo kacna baan nidhi amiirul mu'miniin madaxweyne muslimiintu masalada garan waayay wuxuu weydiiyey wadaadkii la fadhiyay buu weydiiyey warkiiba cumar maqlay uu yeedhay balkaalay aqoon daradaadii haddana midab darrad ku darsatay aqoon daradii midab darrad ku darsatay haddana xaramka ilaahay joogin buuri maxaan kugu laf bixin lahaa budh iyo ushi ayada ahaydee shayaadiinta lagu edbin jiray xaramka ilaahay baad wax ku dilaysaa su-aashii diintiina waad ku ciyaaraysaa idab darna waad la timid waxaad astaashaa in lagu baqdhabee laakiin anu ku jilcin maayo xaram baan joogaaye mar dambe ha u noqon kadib wuxuu ku yidhi inna fi linsaani 10 أخلاق أفرس عمر حكيم ومن حكماء هذه الأمة ولا نعلم أحكم منه بقى إن في الإنسان 10 أخلاق بني آدم كطبعا رقم بوله يقول 9 حسنة و1 سيء بوله طبعا كارقا سقالوا وناكسنتاي هل منا وحنيا يقول ويفسدها ذلك السيء سقالك دقنا وناكسنا وحابا بإيه أو خربا هلك دقنا حما طبيعة حميد بخربته ومحيتها إياك وعثرة الشباب اسكا إلالي دق دالين يرادا كف مدى دالين يرادا ترانتوردا دالين يرادا حاجوين كفيرسو إيشا كردي إذن صومالي ويقان وحيد هل برور بدن قرب مساه يعني شيء فس هذا دب بدن بوكينا أمورها كدق دقنا قام ماذا كفر صدا تلابين كد قاضي إنسان كفر صدا روح الحكومة إنسان كفر صدا إياكم وعثرة الشباب وحاكم إذا حكموين كسوكتك علموا أولادكم العومة ومقاتليكم الرمية ورعرورتي ني أبدكينا ضباشة برا عيدا كيني رقا دقالمانا توقتي يشيش كبرا لبدا والله بحصدا هذا وضعت سنة نقطة أدونك وضعت ولا رادنية عرض يركع صار يوصل دعام بعد بيها لوسي ديليا والله توبرها هي وحيابها هدي لبرتان اللي بيكمتها يضباش سوالي وكم محمد وحيد هذا لفض بالي قاني مشيدان نين دقالما ينشيش يتوقع قونين وحبك وقوان ماي وهنا طيق الناس نيك قناص كشيشان كإيش استوى دقاية عيدا بدن بوكاغا في لياي ونضيف بدايا حكمة النقطي مسلمين تولها اللي تشري حكمة بقى اللقات والله ودقمي توقديست بقى الله بالله مالك الدنبا وداد بدح اللقات هك توقديسن هيا وشيش برن هيا يا اللي بكفه كذا وداد ميلت عمر حقاضي عمر بالوك يعني عمر وحال تخبرت النتيجة باشان بلون والله عيضيو وداد هبل بمدح اللقات وحوري وخطأ وسامي غرب ونك صوتنا لقرن ما هي مكتيس بيت مالك وكبحيه والله ودي بقول توقتنا وضع dadkana iska ilaaliya darbiyada iyo meelaha cidada ku tababarta maxay la waa maslaxa muslimiin waa agab dagaaleed lama joojinayo caruurtuna biyaha saysan ugu hafan ugu dhimanin hala barada baash kadib waxa la maktiya qaadanay ninkii dhintay lama yaqaan la wax raadoogi aabihi iyo walaalihi midna ma naqan yaa yula noola abtigi baa soo kori abtigi baa la noola al khalu warithun man la waritha lahu makti waxa lagu wareejiyay abtigi baa lagu wareejiyay وحكمت حكمين كيس خالد لها وحورنج لا يبيع في سوقنا هذا إلا من قد تفقه في الدين
ما أقولين إنه سوق مسلمين وكجنا عصدا نمان دين تأقونين عمر محاجرة علينا ويكسو جنتاي وحور نمان دين تأقون هذوق جنا عصيب اللعبة وتاجر نقضة إيو بزنس مان نقضة ومضوا ربع سينية بيعوا خريبية حارانتو نوقرنية بختو سوق السوق لنية إلهي كعب صن ماي غش يدقر سعر بر يبلايو كيري ساعدها اللي هي لها حكمة عمر وأنا أمر ديني هذا اللي قرق ملها دبكن ميا اللين يوح ما أنت قد عاي وحاكم هذا حكمين كيس قيمها بدنا لا يكون حبك كلفا ولا بغضك تلفا وحوري هذا واحد شعلاني هكون نفضحن هذا واحد نعنا هكو قالوبين ودحيه أسلم باكشكي أسلم بايدي وحوار كانوا روح عن شعلاني كنا نفضحها كي أنا اسكت عنانا هلفا وقاضي حوري يا أسلم كالي لا يكون حبك كلفا ولا بغضك تلفا حارب سيكون عكرتا كلف كوا معي وروح مركو واحد شعلاده aan iskala reeb kala hayn sida ilmaha carruurto kale wax ku nafbaxa ilmuhu wuxuu maagmiya laga kari maanta suu waayo ee isku cilkaan binafta ka bixi uu dibiri ilaa wixii la siiyo marka xubbiga noocaas kalafka la yiraahdo hadda wax jeclaan oo ruux kalgacayl u qaadi ama ilaahay dartii ama hawlo kala xisaabiin kale baashu aashaha noqoto yiri aashaha noqoto ha ku nafbixina hadda ruux dhinacaysaana laftirkeedu ha ku kala xtagino gaalnimaha gaarsiina baash sida gaalka loo nacbaa ruuxa u nicina يفسر لا يكون حبك كلفا ولا بغضك تلفا يفسر حوري إذا أحببت فلا تكلف كما يكلف السبي بالشيء يحبه وإذا أبغضت فلا تبغض وفلا تبغض بغضا تحب أن يتلف صاحبك ويهلك مفسر هذا روح نعي سبوري هنعي نعيب جالسين إلى تعلاتون ودنتو إلهي وعام ودنت صوغو كذب كاغو إلهي أمريكي كوكو دعضي باشو دبا لسك جعلان دونا وعسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منكم مودة دعي كرتيه ترتيب سو إذا لا يكون حبك كلفا ولا بغضك تلوى حكمينكس وحاكم إذا حكمينكم كتغي خالدة لها فساد الدين إذا جاء العلم من قبل الصغير وحورنت الدين وحي فسادا علمك إيه فقه مركو كيما دو حق ضلين يا رضا أما وكيما دتك عن مقع على هين إيه مثل أمل اللي ذو أما أن شرفت لهاي سيدنا عمر باروني محاجر الليلي ضدك اللي ذا هذي علمك الدين تأيقو أي كتما أيقو حنباران كوا كلا كبر وسنك تاقو الدين كقدان مايا ما أنا إنه هبلو إنه متقامد أما إنه قميد وحكا دقيساني واروني جهلي بو أساقو دمانيا كيرا علمك يسلقا حنباري مايو دين تما ماشا كله مايس هذي نير ودين كبرتو علوم رجوا وين يعام النقدان وضيقوا حكفانا هيا ما كوري إنه هبل هاي شلي قاونا قندر كادو كجويسي بيض ما أنت 10 كده جيسان سنكا يتاجية ده هذا يربور إيوه ما عن وناكسنين هذو علمه قالوا دين توا بابا كي ما هاي سقول رويال فاميلي سكو شيء وكبر بوقاد وحنا هذا نينكن إن قمت كوحكة جيسانية وضيق حدين ما أنا ويلكي روس فادي سنية مركا علمه وهلاك سما يابور دين تو حيبت بادا مركا علمه وكي ماده حق وايلذا حق ضدك شرفت له آل بيتك أشرفت ضدك مركو علمي وكيمات سيدوك ضدك علمي وكيمات أي وناكسنين هذا فسادان كورب هذا وايلك كان فساد حق معقول رقم هاي علوم هذا كان فساد أو عقاش كان فساد أو نبضونك بلقاتك كان نقضه أو إنك أوجازك أو علاقاتك كان نقضه محكوه بتبادي المشكلة ده إنها هيستوى يا هذا مشكلة هذا المسلمين تهيستها تواريخ قدام بيسونا نبكاسات شراء هذا الكيس حاكم إذا فساد الدين إذا جاء العلم من قبل الصغير استعسى عليه الكبير وصلاح الناس إذا جاء العلم من قبل الكبير تابعه عليه الصغير وحاكم الحكمين كيس لست تعرفه يدا كوكا بقبانية لست تعرفه متى قال إنك أسقى وحيكون تمد سيدنا عمر هذا عالم بوها أمير بوها قاضي بوها ننها ولا بدن بوها دول المسلمين تكا أنفعي سووا محكمة الفردية أي أجر لوك يعني ودقيست maxay nin baa xolaas ay maqan uu sheegtay uu dooday marxaatiga aad keenso marxaatiga soo joojiyay marxaatiga buu ma garanhaye kuma aqaanee inaan ku aqoonina ku dhibi mayse
ياكو يقانا بوري نين لفدي يحوري سيدي أنا قرنا إن كان الزكاة أنا أقان أنا أقانو وأنين في عنبوري عمر مركب وقون سيد دربي أنا أقانا لو أن أقون خاص ولا حيسموه سن أوجيني وحوري ما حد كنت أقانا وحانكو أقانا بوري بالعدالة والفضل نينكي بحول وحانكو أقانا نينك وعادل وأن خيار وقبوي لو قاتل إن مرقلي كروي سيدنا عمره مركز رواية هاي مدرس باتيه نين كانوا وواحد أكتر يحلو قرق السوق اللي يحلو وكبح هذين كوحو قبطه ودرس درسي وكور قباي مدرس ما كبراتين نين كان ما يبغى إلا مدرس وحول رواية هاي ما معاملة يعني أحمرتي جناعسي والدينار الذهب الدرهم بين الأحمر والنمن على الحجار أحمرتي مئات هاي 100 ينو لقوا قال إنك حال ميرت كيس إنه ورعي يروح وحاله قال مركب معاملة الدنيا الأحمرت وهذا سمي دارك زي سوتش عليه هنا سكو قرقوري سري سبقوا تكون حقوش لما يسكو يلن هيان دكان بيسلا فران هيان جناعسي بيسود ديمان هيان وحبي يسكو آمنة هيان مالك أسوق كاردمات صفقة روكاغو الريا شنجس بمالك آخريا أما طوم ببا آخريا با سنة كسنة هو عمره يستا شن قرب عمره يستا وارا حجيا بقول شيرنا كهلي ميسيد دايك هاقشو خاين فريسة كلا حضاي أو توقع أو شقره قداموي مسايدة يبوحان أنا كوك قروه ذا الله يكيرا قروه ذا الله يكيرا وارعوك يدكم ودكتي wadaadaha maanta jooga wax amaanada kaga liita ma jiro caamada dhaanta wadaad Soomaaliyeed wuxuu dhiibin lahayd aniga kula hadlay Allah ka dhiga caamiga u dhiibo xuquuqna sida laga iskaga ilaamaysan baranin sida dadka loo xukumo way barteen xaquna sida la iskaga dhowro ee amaanada la iskaga ilaaliyo ee shilinka ay calfanayaan iskaga dhowra ma aysan baran gaajay ku soo koreen xirnibay soo mareen waa kuuliyihiin inay idan laqaan bidoonay runta idin sheegaya shamahay hawsha ma diidanta wax badan baan ogaano wax badan baan ogaa wadaadu ilaahay ka cabsadeen ummadda horyaalkooda weeye waa indhahoodii waa doorkii waa labeenta ummadda labeen ummad markaa taayna dhan walba wanaag amaanada baa ugu wanaagsan muaamalada xalal miiradka xumaan iska ilaalinta iska ilaaliya caamaygu xaqu naas intuu duduubo baa laga konshilin inuu 5 sano hayo nin baa dukaankay kaga tagay wadaadku markiiba uu qaaday xulay masaajid ku bixi baytmaalka sii geey masaalixul muslimiin gali anaaba kamida masaalixul muslimiin wadaadu qiilal badan bay wataan midiye badan bay wataan iska ilaaliya wadaadahan kale waa kuwa khaas ah oo casrigan jooga oo isnaqaano oo Soomaaliyeed wadaadu hodhan ma aha idan wuxuu yiri hadaad ninkan aysan dhaxmarin mucaamalo sid ku ogaatay inuu xalaal miirad yahay oo xaquna iska ilaaliyo sid ku ogaatay waxa dib ka taagan ganacsiga Soomaaliya dib u akhriya intaan sheegay waxaad moodaysaa inaan ku xad gudbaaye dib u fiiriya ganacsiga Soomaaliyeed iyo amaanaadkooda iyo shirkadahoodii iyo wax ka taagan qoliyahan guryaha dhisa dibka ummadda u geysanayaan dib u fiiriya dulmiga ummadda lagu hayo khayaanaadka dhagarta hawsha aad la iskaga fiiriyo wuxuu ma ninkaas waligay mucaamalo dhaxmarin maxaa u tir marka waxaan ku aqaan cadaalad iyo fadli wuxuu ama ka daayay bal ninka saad gobonimadiisa uga maqraatay kacdo waligaa safar ma la gashay jid ma la martay ما يقولي وصفركم محل لقوا هذا مكارم الأخلاق بلقوا هذا سؤال ويا قانان وحيد إن مكاربتنا دوقاته أما تشد لقل أما تشبط لميري شبط لقل أما لدك وهي ولا درس أما تشد يوضل لمر درس كويس كور قبان درس كذا إنه حين يوضل أوغان دقيقة كوغانيس فردديس وحو قراعايو هيسو داري بلايس بك تودا صلاة الليل كيسي وناكس ودربو أوغانيس haweenkiisa qayladooda iyo jacdooda carruurtiisa shidadooda dhibkooda way ku soo bixi asagu wuxuu yahay hadaad ninku israacdaan oo safartaanna
ninku duntiisa maydhaxdiisa macaankeeda soo bixi iyo inuu qanjir yahay lama sitaan xarig lama sitaan inuu yahay mid hunguri xun on dulqaad lahayn on sabar lahayn oo qanjir ah oo jirac oo soo koga isku dhagaaya on koob shaha lala wadaagi karin oo wax walba aniga daran ah inuu yahay waxay ku soo baxdaa safarka iyo wadada wadaad aadan la safrin weliga ha dhihin waa gob ha dhihin waa waxbuu bixiyaa waxbuu quuraa ha isku odhan inta markuu yidhi ninkan jidna lama marin darisna lama noqonin mucaamala lama dhex marin markuu yidhi wuxuu yidhi idan anta laa tacrifuhu lasta tacrifuhu ninka ma taqaanide iika nin yaqaana orodoo ninku yaqaana iika waa xikmooyinkii sayidina cumar uu ka tagay waxaa ka mid ah oo odhan jiray tafaqahu qabla an tusawadu war xeray wax barta intaan ogaasi laydinka dhigin tafaqahu diinka barta qabla an tusawadu intaan sadiyaali ogaasiyaa laydinka dhigin in xil laydin dhiibin wax barta salafka fasiro waxaa wuxuu u jeedaa qabla an tajlisuu linnaasi fatus'aluu intaad dadka u fadhiisanin mimbar iyo miis iyo xalqad iyo masaajid in sheekh lagaa dhigan wax baro maxay markaa dambe xilka lagu dhiibo jaanis wax ku baratay ma helaysidba mas-uuliyaadki iyo xilalki iyo waqti oo dhan ba cidhiir noqonay inta aad yar tahay een mas-uuliyaadka badan ku fuulin wax barta oo dadaala galabta hadalku waa igu yar dheeraaday cumarna kama dhowi cumar hawshiisu fanol waxay noqotay faray kama qodno insha allahu taala arbacada soo socotaan gabagabeynayna haddii alla yidhaahdo waad mahadsantihin wassalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu